السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسج كان waxaad ku ogaan doontaa 6 arrimood ood u baahan tahay ka hor inta aadan meel ka haajirinin oo aadan tegin meel kale oo kugu cusub ama wadan kale oo aad ku cusub tahay. soo dhawow haddii aadan hore ila socon jirin waxaan ahay Nafisa Abdidoon waxaan hooyo Soomaaliyeed dhiirigelisa walaalaheeda Soomaaliyeed haysatana ganacsi online ah markaasay toole dadka kalena uga faa'iideysa qofkii danaynaya. waxaan jecelahay inta aanan 6 qodob kula wadaagin in aan ka codsado si maaragtay respect leh in aad YouTube kan aad noo subscribe gareyso iyo Facebook iyo meel kasta nagala socotid aad ku soo dhawaatay gacmo furan maxaa yeelay YouTube ka mid aan hore u isticmaali jiray ma ahan Facebook ayaan ku badnaa marka hadda waxaan jeclaystay message ka maadaama dadkayga ay hadda YouTube ka u bateen in aan message kan ugu soo gudbiyo si joogto ah maadaama uu yahay message aan rajaynayo inuu dadka dhan quseeyo kuwa gudaha joogiyo kuwa banaanka jooga qurbahaba haday yihiin barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid joogto ah oo aan si joogto ah insha Allah taala maalinba meesha mudan aan idinkaga soo gudbiyo waxaanan magaciisa u bixiyay hijro iyo himilo sare qof inuu ka soo haajiro meel raba laakiin himilo sare iyo hami sare uu ku jiro hadii aad tahay ayuu message-kan quseeya marka insha Allah taala hadii aad markaas message kan dadka uu quseeyo direct uu quseeyo aadan ahayn waxaan hubaa walaasha ama walaalka ama midka qaraabo kuugu dhow ama saaxiibka inuu message kan si direct uu quseeyo marka waxaan ka codsanayaa fadlan in aad u share gareyso oo aad gaarsiiso annagana aad like iyo comment iyo share ka aad noo saartay iyo subscribe ka si aan walaalaha hadafka aan la doonayno uu u gaaro 6 qodob ayaan jeclaystay inaan kula wadaago ka hor inta aadan haajirin horta hijra maxay tahay anigu qaabkuma base gareynaya diini ah axaadiis kuma soo qaadanayo nabigiisu u haajiray waxyaalahaas oo dhan ma raba inaan kala hadlo waxaan rabaa inaan halkaan ka hadlo practical experience wax la dhaho macnaha wixii aniga aan sida practicalka aan u soo sameeyay in aan ku sheego wadada adag oo tahay inaad iska ilaaliso iyo wadada fudud oo ay tahay inaad martid marka barnaamijka wuxuu noqon doonaa qayb yar maalin ama qaybta mudanba maalin inaan ka soo qaadano oo aan kula soo share gareeyo si aad uga faa'iideysato oo aad maaragtay haddii aad tahay dadkaas u baahanna aad ficilka u qaado haddii aadan tahay dadka kale ee markaas ayaga ayna qusayna aad walaalahaaga u gaarsiiso waxaan ku bilaabayaa marka 6 qodob qodobka ugu horeeya waxa weeyaan wax loo yaqaano sahan maxaa la yiraahdaa sahan waxa la yiraahdaa miyiga waxa loo isticmaalaa inta aysan reerku guurin oo aysan meel u guurinin wax leeyahay sahan baa la diraa rag baa baxa meesha loo guuri rabo ayay tagaan ma roob baa ka da'ay ma colaadaha ka jira haddii roobka da'ay waa imisuu yahay ma dhudhun baa ma xusul baa waxa garan kara dadka waxa aan ka hadlaya dhaqanka iyo Soomaaliga fahmaya markuu inta soo tijaabiyaan dadka maxaa la sahanku ay soo tijaabiyaan ayay reerihii dib ugu soo noqdaan kadibna waxay yiraahdaan warwaad guuri kartaan oo waxa weeye meesha barwaaqay iyo nimcan ku soo aragnay waana nabad intaasayna qaadanaysaa xitaa safarku intuu qaadanayay soo tijaabiyaan iyo wixii la mida marka waxaad u baahan tahay inta aadan tilaabo qaadin waxa la yiraahdaa sahan in aad soo sahmiso meeshii waliba mar maahane 2 ilaa 3 anigaan idin la hadlaya inta aanan guurin oo meesha aan degay aanan u guurin muddo 3 sano oo joogto ah ayaan ku laalaabanayay si aan ugu soo noolaado si aan u soo test gareeyo si aan maaragtay dhaqaalaha igu baxay u soo ogaado si aan u soo ogaado guryaha ijaarkooda si aan u soo ogaado waxyaalaha dhan waxay igu koos gareyn karaan si aan u soo analyze gareeyo marka soo imow meesha aad doonaysid ka hor inta aadan u haajirin qodob kale wuxuu yahay ha noqon mid hiyaka ama hiyilaka ku socda maxaa la yiraahdaa hiyilaka waxaad aragtay qof guuray adna waad guurtay waxaad aragtay qof maaragtay wax qabsaday adna waxaad istiri waan qaban kartaa hiyilakaas wax wanaagsan maahan yes markuu qofku wax qabto waad qaban kartaa laakiin maxaad u baahan tahay tilaabooyin kale inaad soo buuxiso ka hor inta aadan boodin marka ha noqonin qof hiyilaka ku socda noqo qof go'aan iyo decision asagu soo gaaray ku socda sahankii soo dhameeyay tijaabadii soo dhameeyay qodobada aan soo socdo dhan ku sheegi doonana soo urursaday ka hor inta uusan tagin meesha uu socdo marka iska ilaali hiila kaca heblaba waa guurtay guur waliba taa waxa u badan gabdhaha ayaga sharafta leh waxay ugu badan yihiin waxay arkayaan
meel bay waxay ka arkayaan ilmo quraan dhameeyey ilmo maxaa la yiraahdaa meel xaflada loogu dhigayo kuwa maaragtay you know meelo wanaagsan waxyaalo wanaagsan gaaray markiiba waxaa la leeyahay heblaba intaasay gaartay annagu waan gaari karaa ha samayn intaas heblo ma ogid dhibka ay martay heblo ma ogid inta sanoy ku soo qaadatay heblo ma ogid dhibaatada ay marayso heblo ma ogid waxyaalaha ku soo dhacay marka experience-gii anigu aan 5 sano soo bartay in aan waxaan rabaa adigana aan kaa waaniyo oo aad waddo saxa soo marto aad dabar adaygeedana yeelato kadib markay imaadaan culaysyada yaryar ee imaan doona marka kuwaas dib baan u dhigan doonaa waxyaalahaad u baahan tahay iyo tillaabooyinka page-kan ayaad kala socon doontaa si joogto ah marka qodobka labaad waxaan niri qodobka koobaad inaad wax sahmiso oodan iska ordin qodobka labaadna heliyiila kac wax la yiraahdo inaad iska ilaaliso qodobka labaad qodobka saddexaad wuxuu yahay hadaf la'aan in aadan adigoon hadaf go'aansan oo inta meesha aad joogayso ma 10 sanaad joogaysaa ma 5 baad joogaysaa ma abidkaabaad joogaysaa maxaad ka baranaysaa maxaad ka doonaysaa waay baan ugu socdaa adigoo oon hadaf haysan ama aan yool aan ku soconin in aadan aadin meesha aad isleedahay aad taasi maxay kuu keenaysaa haddii aad sida experience aan aragnayba oo maaragtay indhaha ku soo aragnay walaalo badan ay experience u noqdeen aan rajaynay inay meelahan commentiga noogu reebi doonaan haday yaqaanaan ama dhibkaas ayaga ku dhacay waxa dhacda familo soo guura wadankoodii hooyo ama wadamo kale islaama ama meelo kale u guura markay guuraana after 1 sano gadaal u noqda oo halka ay ka yimaadeen siira ka bilaaba 3 sano kadib siira ka bilaaba sababtu maxay tahay markii hore ayuu wuxuu ku soo baxay qofkaasi yool la'aan hadaf la'aan isagoon hadaf lahayn oo yool wax la yiraahdo maartay uusan maartay hadaf u go'nayn maartay ayuu soo baxay marka haddaad gool dajisan oo goolkaas uusan ahayn mid biyo kama dhibcaan ah fadlan ha soo dhaqaaqin hana guurin marka qodobkaasna waa kan saddexaad qodobka afraad wuxuu noqonayaa hanyari in aad iska ilaaliso qodobka afraadna hanyari inaad ku hanyaraato oo meeshaad u guurayso aad tiraa talow bal iska soo fiiri bal iska tijaabi hadduu maaragtay bal haddii nabadu maaragtay qaraxiyo wax dhacaan soo carari doonaayo horta bal marka hore aan tago marka hore inaad hanyarida iska dayso oo aad noqoto qof hankiisa iyo himiladiisu ay sarreyso oo hanyari hadday kugu jirto waxaa garantii ah in aadan gaari doonin hadafka aad dejisatay walow aad ku adag tahay ma gaari kartid hadafka haddii hankaagu yar yahay waxaa la yiraahdaa maxay ahayd maamahadii shoot maxaa la dhahaa the moon haddii aad ku dhufan weyd macnaha dayaxa ku dir maxaa la yiraahdaa ku tuur waxa tuuraysid hadayna dayaxa ku dhicina xidigaha ku dhicaysa macnaheedu waxay tahay meel dheer hankaaga dheeree oo mid sare ka dhig hankaaga ha gaabinin oo mid han yar oo isle waxaasu hadday saan noqdaana waan iskaga soo noqonaya dhib ma laha haddii ay hagaagtana waan ku sii soconaya marka dadka noocaas haddaad tahay arrintaas aad maskaxda ay ku taagan tahana qodobka afraad xoog isaga fiiri dad badan ayay arrintaas ku dhacday oo markii ay wax yar shanqara wadankii ay ka maqleen cararay oo yirba waray meesha nabad maahanay xageenu tagnaa haddana u sii cararay wadamada dariska kadibna ka sii cararay ileen hankiisii baa yar haddii mar hankaagu yar yahay oodan ku kalsoonayn meesha aad socotay meesha aad tagayso waxaan ogahay in aadan gaaraynin hadafkaaga marka insha Allah hanyarida iska ogow qodobka shanaad wuxuu noqonayaa hoggaan xumi haddii hoggaanka dadka u ah reerkaas guurayo qofka hoggaanka u ah uu maaragtay hoggaan xun yahay oo tala xun yahay fadlan ka fiirso hoggaanka iska hagaaji inta aadan soo haajirin ka hor maxaa dhacaya mahmaha waxaa jirta Soomaalida dumarka loogu mahmaha laakiin mar rabo anoo gabdhaha aad baan u jecelahay kooda inaan soo qaado marka kuma mahmahayo laakiin mahmahayadaas way jirtaa marley waxa saa u talisay laakiin maya marleydu waa gabar sharaf badan waa gabar ilmaha korisa waa gabar horumarka jecel waa gabar active ah waa gabdha qiimo badan waa gabdha diintooda ku adag waa gabdha dhaqankooda ku adag waa gabdha sharaf leh waa gabdha ilmahooda maartay af Soomaaliga iyo diintii wax walba bara aad bay u qiimo badan yihiin meel kasta ay joogaan waliba kuwa aan isleeyahay waa ugu mudan yihiin waa kuwa qurbaha jooga ee hawsha aniga aan soo maray haya wali ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan rajaynayaa inuu garab galo
aniguna waxaan ballan qaadaya inaan gacan qabto inta aan awoodo marka iska ilaali hoggaan xumi haddii qofka wax hogaaminaya ee talada reerka goynaya uu qof hoggaan xun yahay ama gabadha ha noqdo ama wiilka ha noqdo ama hooyo ha noqoto qofku raba ha noqday haddii qofka reerka hogaaminaya uu yahay qof talo xun ama hoggaan xun oon wax liid garayn karinin waxaa dhacaysa qofkaasu inuu hoggaankiisa meel xun idinku rido oo hadhow aadna kasoo noqon karin inuu meeshii tijaabiyo sanad joogo hayaay haddana waynu qaxaynaa ilaan taladiisina qofkii lama diidi karo asaga ayaa awalba hoggaanka hayay marka in go-aan adag oo wadatashi ah oo laga fariistay ay noqoto tilaabada lagu soo qaadayaa ee reerkaas waxaan idiin rajaynayaa message-kan 5 qodob inay noqdaan 5 qodob oo aad iska ilaalinayso ka hor inta aadan soo dhaqaaqin haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan markaa tibis yar ama talo yar aan halkan inaga siiyo wax kastood qabanaysaahi kuma dhacayaan maalin iyo labo wax kastood qabanaysaahi waxay u baahan yihiin dhabar adayg joogtayn iyo ku celcelin haddii aad ficil qaadayso wuxuu kaaga baahan yahay habeenno badan inaad u soo jeedo u tala badsato aad maaragtay waxna isku xirxirato marka qodobka 6aad wuxuu noqonayaa ee ugu dambeeya oon rajaynaya qof walba inuu dhegta u raaricinayo wuxuu noqon doonaa hanti la'aan waa hanti la'aan haddii aadan dhaqaale haysan ama aadan xoolo daara kama wado in bangiga kuu buuxaan kama wado in maaragtay laakiin survivalka wixii aad ku samayn lahayd haddaadan gacanta ku haynin waxaad u baahan tahay inaad iyadana urursato laakiin xoolo weyn ha ka fakerin iyo wax bangiga ku jira maalintan waddankan soo guurayay tigidka kaliyahan soo awooday alxamdulillah 5 sanana farxad baan ku noolaa welina hawshu way socotaa weli qof baahi qabatay iyo qof walwalay iyo qof gaajooday iyo qof habeen u qaday maxaa la yiraahdaa meeshii laga yimid ma jirto in uu yiri alxamdulillah maahane marka haddii aad arinta 6aad oo ah hanti yari macnaha ama hanti la'aan in aadan degdegin eed wax urursato wax isku toosiso waxa aan ka hadlayaa waa wax yaro maalmaha aad degaysa ah ma ahan hanti bangiga ku jirta kontonku waa inaan haystaa waa inaan guri haystaa waa inay daara ii jeexan yihiin waa inaan maxaa la yiraahdaa dabaq hebel ii taagan yahay waa inay ijaar meel halkaa lacag iiga socoto waa in bangigaasi lacagtaas ay iigu jirto maaragtay meel ganacsi ah haddii ilaahay wax ku siiyey ood wax maaragtay sii qorshaysatay ama aad hore wax u sii dhigatay ama aad hore wax u sii dhaqaalaysatay taasi waa goonideeda laakiin waqtigu kaaga lumin bangi lacag ku ururin sababtoo uma baahnidba noloshu waa easy ilaahay subxaanahu wa ta'aala hana wuxuu qofka ka arsaaqaya meesha uu ugu talagalay asagu yarsuq macna maxay ayadii meesha ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu doono ayuu qofka ka arsaaqa marka uu ku arsaaqaya wuuna ku qalabaynayaa ha ku mashquulin inaad bangiga lacag dhigato laakiin waxa aan ka hadlayaa waa daruuriyaadka waxa loo yaqaano marka hanti yarida ama hanti la'aantu kama wada inaad dabaqyo leedahay waa wax yar ee markaas survivalka maalintaas iyo bishaas iyo wiigaas iyo 2 bilood ama 5 bilood ama 6 bilood ugu horeysa aad salka dhulka ku dhigi lahayd laakiin irsiqo asaga isfuraya waan faahfaahin doonaa barnaamijka ka xigo qaababka ugu quruxda badan ee siyaalaha ma aragtay because waxa jira gabdho walaalahey ah oo waliba dhinaca messengerka xoog message iiga soo qora su'aalaha ay soo weydiiyaan oo dhan ayagoo go'aanayaan fiidiyoga dambe insha Allah ta'ala aan ku soo jawaabi doonaa biidnillaahi ta'ala marka soo wada dhawaada haddii message-kan ku cajab galiyo please comment-iga noogu reeb taladaada tusaalahaaga iyo waxa aad mar walba jeclaan lahayd in aan kula soo wadaagno sidoo kale please ha ilaawin inaad subscribe saarto share garayso linkiyaasha aan hoos idin soo dhigana aad fiirisaan offeriska yaala biidnillaahi ta'ala khayr baan idin rajaynaya waa walaashii nafsaatu doono idin leh guuleysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh